waxay qabteen asbuucan nin 67 sano jir ahaa oo meydka hooyadiis oo 9 sano ka hor dhimatay guriga ku haystay. meydka hooyadiis oo 9 sano ka hor dhimatay ayuu guriga ku haystay ninkan. صاحبي soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad waa barnaamijkeena aan uga hadli jirnay maalin ka mid ah asbuucii dhacdooyinkii ugu yaab badnaa ee saxaafaddu ay dunida daafeeda asbuucaas ka qortay. asbuucan waxaan soo qaadan doonaa dhacdo yaab leh oo ka dhacday waddanka Slovenia. waddanka Slovenia waa waddan ka mid ah Yurub wax uu daris leeyahay Talyaaniga iyo Hungary iyo wadamadaas. 1990 wuxuu ka mid ahaa wadamadii ka xoroobay ee ka qaatay istiqlaalka waddankii kala furfurtay ee Yugoslavia. waddankan ayaa wax ka dhacay arrin cajiib ah. nin u dhashay waddankan oo 67 sano jir ah ayaa waxa uu sameeyay arrin yaab leh oo haddana naxdin leh. wallahi arrin naxdin leh oo waxa weeye yaab leh yani markaad maqashaan. booliska Ljubljana ee caasimadda waddanka Slovenia ayaa waxay qabteen asbuucan nin 67 sano jir ah oo meydka hooyadiis oo 9 sano ka hor dhimatay guriga ku haystay. meydka hooyadiis oo 9 sano ka hor dhimatay ayuu guriga ku haystay ninkan. meydka hooyadiis oo 9 sano ka hor dhimatay ayuu guriga ku haystay. marka ninkan ayaa meydka hooyadiis guriga iskaga haystay muddo 9 sano ah. arrinta yaab kale ayaa waxay tahay maxaa ku kalifay ninkan inuu meydka hooyadiis muddo 9 sano ah guriga ku haysto. tan kale wadaadan iyadoo dhimatay miyaysan lahayn dad asxaaba, dad qaraaba ah, dad saaxiibo ah oo soo booqda muddada 9 sano ahayd. ninkan ayaa waxaa ku kalifay ayay yiraahdeen booliisku markii la baaray arrintii warbaahintu qortay in uu doonayay hooyadiis oo qaadan jirtay lacagtii howlgabka in aysan lacagtaas isaga ka go'in. muddo 9 sano ah ayuu guriga hooyadiis oo dhimatay ku hayay. waxa uu doonayay lacagtii howlgabka ahayd ee ay hooyadiis qaadan jirtay inuu sidii u sii qaato maadaama qofku haddii uu dhinto qofka weyn ee loo qoro howlgabka haddii uu dhinto lacagta waa ka go'aysaa. marka isaguna lacagta malaha dee asaga hooyadiis soo qaadan jira ugu qornaa lacagtaas ayuu doonayay in ay u sii socoto. wallahi arrintan ayaa arrin yaab leh. hooyadiis oo dhimatay ayuu muddo 9 sano ah guriga ku hayay ilaa 2011 ayaa la yiri maamada guriga iyadoo dhimatay ayay dhinac u taalay ninkan. hataa lama sheegin baa la yiri maamada sababta ay u dhimatay ilaa hadda lama oga iyo wixii dilay. arrinta kale iyaduna waxa weeye dadkii sidaan hore soo sheegnay saaxiibadeeda iyo qaraabadeedii iyo macrifadeedii iyo miyaysan soo booqan jirin. ninkan ayaa sida ay warbaahintu sheegtay waxa uu sheegi jiray dadka in aysan doonayn hooyadiis inay cid la kulanto oo ay cid aragto oo ay doonayso inay keligeed ahaato cid oo dhanna aysan doonayn in ay qaabisho. sidaas ayuu uga lexlexin jiray dadka. dhacdadan ayaa waxay ka mid ahayd dhacdooyinka ugu yaab badnaa ee asbuucan ay saxaafaddu qorto. adduunyadan maalinba wax yaab leh ayaa la qorayaa. 9 sano hooyadiis oo dhimatay ayuu wuxuu ku haystay guriga si ay ugu sii socoto lacagta howlgalka. wallahi waa arrin yaab la weeye. صاحبي haddii aad horey u taxneed kanaalkan like sar haddii aad hadda ku cusub tahayna waxaan ka codsanayaa inaad like iyo subscribe saartid. waxaan kusoo gudbinaa maalin ka mid ah asbuuci kanaalkan arrimaha ugu yaab badan ee dunida daafeeda ay saxaafaddu ka qorto sida tan oo kale. waa mahadsantihiin guuleysta.